shir jaraa'id oo ay madaxda ururada saxaafadda ay ku qabteen magaalada Muqdisho ayaa lagu cambaareeyay hanjabaadyo iyo cagduleyn la sheegay in lagu hayo warbaahinta madaxa bannaan. Xogeyaha ururka saxafiyiinta SJS Cabdalla Muumin ayaa waxa ugu horeyn uu cambaareyn dusha uga tuuray isla markaana shaaciyay in markaasi cagduleynta uu si gaar ah warbaahinta madaxa bannaan uu ugu hayo agaasimaha warfaafinta madaxtooyada Soomaaliya Cabdinuur kaas oo sheegay in had iyo jeer hanjabaadyadaasi ay kala kulmaan maalin walba wariyaasha dhibaatada loo geysto oo garaaca iyo jirdilka iyo xadgudubka lagu geysto oo booliiska iyo ciidamada amniga ee kala duwan ay ku sameeyaan dawladda federaalka Soomaaliya mas'uuliyiin ka tirsan ayaa waxay u sameeyaan jid iyo wado ay ugu marmarsiyoonayaan in cadaaladda aan la marsiinin dadka wariyaasha dhibaateeya. waxaan rabaa inaan halkan ka xuso nin la yiraahdo Cabdinuur Maxamed Axmed oo ka shaqeeya madaxtooyada Soomaaliya gaar ahaan xafiiska madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo caadeystay inuu hor istaago cadaaladda caadeystay inuu hanjabaado iyo handadaad kala duwan isagoo ka faa'iideysanaya awoodda xafiiska madaxweynaha u diro suxufiyiinta qaybahooda kala duwan ee ka shaqeynaya warbaahinta kala duwan caadeystay inuu awoodda dhibanayaasha aan fahamsanayn sharciga uga faa'iideysto fahamsanaan la'aanta ay sharcigu fahamsanayn mar walbana wuxuu hor istaagaa in cadaalad la marsiiyo dadka dila ama dhibaatada u geysta suxufiyiinta. dhacdadii ugu dambeysay waxay ahayd markii dhibaato loo geystay wariye ka tirsan Shabeelle TV oo uu Facebook-giisa ku qoray kana tirtiray saacado kadib 4 bishan aan ku jirno May oo screenshot-ka aan hayno meelna uu noo yaalo inkastoo isaga uu tirtiray oo Facebook-giisa ka tirtiray laakiin aan leenahay dad wax kaydiya. wuxuu caadeystay Cabdinuur in uu wariyaasha u horseedo mar walba dhibaato loo geysto halkii ay maxkamadaha tagi lahayn oo dacwoon lahaayeen ilaa sharciga waa loo siman yahay in wariyaasha ku qanciyo inay kiisaska ka laabtaan oo ay yiraahdaan waan cafinay iyo waxaan qaadanay waxa la yiraahdo xeer jajab. mar walbana wuu qoraa cadeymo kala duwan waa loo hayaa oo Facebook-giisa waqtiyo kala duwan uu ku qoray laga soo bilaabo Febraayo 2019 ilaa al'aan aan taaganahay. kiiska ugu horeeyay wuxuu ahaa markii lagu jirdilay laba wariye meel u dhow wasaaradda arrimaha dibadda oo ay markaa garaaceen xabadkan dhulka u dhigeen ciidamo ka tirsan ammaanka iyagoo wariyaashaas shaqadooda gudanay. arrintaas waa ku tagrifar lagu tagrifalay awoodda dastuurka dalkan iyo xeerarka kala duwan ee dalku yaal. waxaan rabaa inaan meeshaas ku daro mar walba Cabdinuur wuxuu ka andacoodaa sida hadalkiisa ugu dambeysay 6 bisha May markii aan u dabaaldegnay maalinta xorriyadda uu sheegay in dawladda federaalka aysan awood u lahayn waxa ka dhacaya Kismaayo iyo Baydhabo inay wax ka qabato annagu aan ku eedeynayno dilalka suxufiyiinta iyo dhibaatooyinka loo geysto wariyaasha oo dawladda federaalka aysan awood u lahayn wax ka baxsan magaalada Muqdisho. meeshaas waxaan rabaa markaan idin sheego oo Cabdinuur aan baro dastuurka dalkan waxa ku qoran haddii isaga uusan aqoon oo uusan soo baran. qodobka saddexaad ee faqradiisa afraad ee dastuurka wuxuu sheegayaa talinta sharciga oo micnaheedu yahay dastuurka inuu yahay aasaaska qawaaniinta iyo xeerarka dalkan ku dhaqankiisuna ay muhiim tahay. qodobka 10aad wuxuu sheegayaa karaamada aadanaha dhowristeeda iyo ilaalinteeda dawladda Soomaaliyeed ee federaalka ah 18 gobol inay mas'uuliyad ka saaran tahay. isaga wuxuu ka shaqeeyaa xafiiska madaxweynaha jamhuuriyadda oo micnaheedu yahay madaxweynaha 18 gobol ee dalka awoodiisu ay hoos imaanaysay sharciyan. qodobka 12aad ee dastuurka wuxuu sheegayaa waajibaadka dawladda kuma koobna oo kaliya inay dhowrto xuquuqda dadka balse waa inay qaado tallaabooyin mangal ah oo lagu ilaalinayo ama looga dhowrayo muwaadiniinta Soomaaliyeed wax kasta oo xadgudub ah in cid kasta ay ku sameeyso. sidee uga baxsanaysaa inaad tiraadid Kismaayo iyo Baydhabo dawladda federaalka waxa ka dhacaya mas'uul kama aha waxna kama qaban karto. xogeyaha ururka saxafiyiinta Fasaj Maxamed Ibraahim Macalimow ayaa isaguna waxa uu ka hadlay saxafiyiin lagu kala dilay magaalooyinka Muqdisho iyo Afgooye iyo sidoo kale saxafiyiin u xiran dawladda Soomaaliya iyo maamulka Somaliland waxaana uu ka dalbaday in wariyaashaasi ay xorriyad siiyaan. marka waxaan meesha u taaganahay waxa waaye oo aan wadi doonaa maalinna aan joojin doonin in qof inta uu sharci darro ku xiran yahay inaan aamusno. annaga dawlad shaqo kuma lihin siyaasiyiin ma nihin laakiin waxaan diiradda saaraynaa xorriyadaas qofkaas wariyaha ah waa inuu cadaalad helaa cadaalad kuma hayna meesha. waxaan codsanaynaa marka sida ugu dhaqsaha badan waalidiintiisa halkan nala jooga dadkii la shaqeynaya halkan jooga hal maalinna qofna ma arkin 70 cisho waa aabihii ma arkin hooyadii ma arkin
annagu ma arkin qof arkayna ma jiro waxaan rabnaa in fursad naloo siiyo inaan aragno xataa waxa shaki naga jira maaragtay xaaladiisu sida ay tahay xaq uu leeyahay maaragtay waxaan aaminsanahay in waxa lagu haysto ay shaqadiisa tahay haddii aan shaqadiisa lagu haysan oo dambi galay dambiga waa la keeni lahaa laakiin ilaa hadda wax dambi oo la keenay haba yaraatee ma jiraan waxa kale oo aad muhiim u ah iyadana oo aan maaragtay fursadan uga faa'iideysanayna dawladda Soomaaliland madaxweyne biixi in uu sida uu dhaqsaha badan u sii daayo wariye Cabdimaalig Coldoon waa la mid intaas uu xiran yahay waxa lagu haystana waa wax isaga uu qoray oo uu sheegay marka xaq ma aha in qof inta la haysto iyadana fursadan aan ka faa'iideysanayna waxaan u diraynaa baaq mar kale horaan ugu hadalnay waa ku celcelinaynaa kamana joojinayna inta qof sharci darro ku xiran yahay waxaan rabnaa xaaladda Soomaaliya ee warbaahintu inay wax iska bedesho sababta hadda walaaca weyn nagu haysa waxay tahay doorashada dalkii uu isu diyaarinaya oo dalkii galaya doorasho marka la isku diyaarinayo haddii xaaladii hadda sidan u cakiran tahay oo qofkii 70 cisho la iska xiranayo wax maxkamada aan la keenaynin sidee wariyaashu uga warrami doonaan doorasho madax bannaan in ay qof walba waqtigiisa siiyaan in ay dadka dhexdhexaad u noqdaan walaac weyn aan qabnaa marka sidaa darteed waa waxaan ugu celcelinayno xaaladda sidan maanta ay tahay in wax laga bedelo maxamed yaxya juna Somali TV Muqdisho.